سؤاشينا ما أنتو حيكي إماتنين أو وحو ليه هاي دب وحا إحايستو ور هذل عر هذل أي حايستو دحي ور هذل عر هذل هذلك لي مدي دايو لكن وحو يري موضوع لغو كينا أو دب لكن أذن كهاد لي كيرين ها أمبالي ليه هو يري دب كنين كان هايستو ور هذل أما عر هذل كيه محوية هاي maxaana kula talin doonaa gabadhaasne waxay sameynayso miyay ku saxsan tahay mise way ku qaldan tahay talada ka soo dhiibay khayr Allah ku siiyo alxamdulillah wa salaatu wa salaamu ala rasuulillah walaalaha ilaahay darsi jecel meel adduunka ka joogtaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh wa barnaamijkeeni oo talaado walba aan soo siideynin oo cinwaankiisa ahaa ila tali su'aashiina maanta waxay ka imaateen saayidin sheegay sanadkan bilowgiisa su'aasha sanadkan waxay u badan tahay niman ay ka timid okay سؤاشان وحو لي نينكان عنوان اغا دغ شيخ وحو عر هذا اي هيساتو يري اما ور هذا سي وحو جيران marka wuxuu yiri xaajideyda iyo aniga waa waxyaabo badan misunderstanding badan am is afham waa badan ana dhaxyaalo yiri wax aan isku fahamno waa yar tahay hadaan runta ku sheego waxaan dhahamaaheena opposite-keedii jeceshahay inay sameeyso waxaan dhahamaaheena opposite-keeda rabtay example aan ku siina huye dhowr example uu bixiyay qaar ka mid ah ay sheega waxaan leeyahay yiri aniga waxaan rabaa inaadan habeenkii bixin haya leeyahay hal habeen aan sameeyna habeenka kale gabar xanuunsan habeenka kale aroosa jiro habeenkii kale waxay jeceshahay habeenkii inay baxdo waayahay waa kala hadlay marka la hadlo wuxuu yiri wax istaaga wax consistent socdo waay ma istaagaan waxaan leeyahay laba mid ashahada ii sameyn karin ii sheeg ani waxaan jeclahay early inaan casheeyo waayahay habeena early sameeyna hadaadan ii sameyn karin kuma dhibay iga daa kuma rabo wallahi igu dhibeen kuma dhibay iska daa ma yeelada ilaa cashadina cunti duway waayahay dhaqso sameey habeena dhaqso sameynaysa markaan imaada kadib ay jeceshay jikada inay gasho anything aan dhaho waxyaabo badan wuxuu ii sheegay aan la yaabo marka wuxuu yiri hadda wixii waa sii weynaadeen hadda waxa bilaawday marka qof ay qaraabo yihiin marka wuxuu yiri ay wax u sameynaysaa marka wuxuu yiri waxayba ka dhigataybo kaana qofkaas ba inuu qool kala adduunka inaysan u oolin oo qofkaas ahayn marka waa la hadlay ani waa ka xishooday marka hore qoftaas waa ixtiraami iga mudan tahay waa ka xishooday adi laakiin wixii waa ku sii yani waxay noqotay ziyaada noqotay maalna marka muxaadara u daari aan ka sheekeyneen oo qofka inay gurigeeda mas'uul ka tahay mas'uuliyada gurigeeda inuu wax walba ka ooleysan yahay hatta hooyada iyo aabaha iyo walaalaha waxa dhanba guriga caruurta meesha joogtana mas'uul ka tahay laana kuwanay yar oo maanta tarbiya u baahan dadkaas dad waaweyn waa qofkan caawinaad kaaga baahdaan laakiin kuwan tarbiyada kaaga baahan oo caawinaad kaaga baahan oo raxmad kaaga baahan oo tarbiya kaaga baahan ina ogaatid kaaga baahan oo ilaahi uu ku weydiinay kuwan waaye almuhim markii dambe wuxuu yiri xoogo waxaan fahmay inay wax fahamtaan isdhahayo yiri habeenkana waxaan yiri walaale meeshaas aaday sidoo kale انت عمرك ما شو يجي سأسعتي هذا وحالة كري لا فامل كي جميع مرك هربا وين ماشي سعتي فامل كي قف كويه مشي جاي ولا الكيد ميا ولا شيء ميا عباد ميا وهذا مشي جاي one of the family واحد ما فامل كي هبل أما هبلا لقى كري إكس واي بلقى كري لا يسمع مرك هربا وين ماشي سعتي ما إسكتي راهي مرة فامل كي يرتني يقول سمعن وأوجا إن أبي يستدارته فامل كي كم جوا يعني وحدي وراني فامل كان مقولي والله أردس كانت ما يمرها قرد عاد وآموسي وكأن إني بهرين كاس قالت جرين لايت كلا إني قالتي مركور وحان كعبادة لبا ساعة عن كعبادة يسدح ساعة 4 ساعة اللي قاعد عرورتي ماشي كضيعين علمه سكولكي ما هذاين هبين إلا لسو بريا لب اللابي دعوار كده عندنا الله هتلي علي ما نتلو إذا بإي شيء يكتب إنا فاهم الكي نعبد مركب وحي الشيخ وحاي هاي استعر هذا لا يهايسته قري جيجن وبربري ربيعه قفكاس يقرابدين أما قفتاس يقرابدي هين وحوير قري بربري نساه وحان سمي مقرناي أرنت إلى حد وإي هايسته
habeenkii waa lagu soo dhafraa waa lagu soo seexanaa ilmaa joogo iskuul ani waa soo shaqeeyaa cunuga ugu weyn 10 sano ma gaar ama 10 sano jira meesha la wada fadhiya ilmihii isma hayn karaan ana imaanay okay ilmihii wuxuu yiri ana suuq shaqo aada ilmihii iskuul u baahan yahay qofku dambe مثلا 8 9 oo kala la rabaa in la sameeyo anigi 7 la rabaa inaan baxo waxaan sameeyay ma garanay marka had lahaa familkii ilmahaaga diyaarso ani familkii qaraabadayda umbalile hooyo dibkaas ay haysto waxaan sameeyaa arrin jirta waaye kaliis ma wallahi waaqع jirta waaye okay intaas oo mushkilada jirto waxaan rabaa inta aan talada sheegin meeshan ku jooji waxa soo qorta waxay kula tahay fikrad ahaan kula tahay soo qor khayr Allah ku siiyo waxay kula tahay soo qor pointiga dan u imaano horta ninka iyo xaaskiisa labadan qofood ayagoo xor isu imaadeen ninka application uu soo gudbistay gabadhan iyadoo la qasbinay aqbashay application kaas aqbalitaanka aad aqbashay macnaheedu waxa waaye mas'uuliyad ku fuushay waaye maanta madaxweynaha waqtigu rabo ma bixi karo oo iskama soo wareegi karo wadankiisuna mas'uul ka noqdo meel markaa mas'uul ka noqotay maxay dhigeen qof lagu seexdo waa seexan Soomaaliya haddii hoola lagaga tagay gabadha hoola gurigan lagu haayo hawshaas laga rabaa inay hay'ado gabadha mas'uuliyadda walaal mas'uuliyadda waxa la isku haystaa aabaha oo ku dhalay iyo hooyada ku dhashay iyo ninkaaga caruurta iyo ninkaaga guriga ka horeeya la isku haystaa adina waxa ka hadlaysaa walaal iyo ina adeer iyo ina abti iyo ina ayeey iyo ina qabiilo iyo ka hadlaysaa walaalayaal ma ogna horta xuquuqda guriga ma ognahay gabaray walaashay ma ogta horta waajibaadka ku saaran ninka kugu leeyahay ma ogtahay gabdhaha waxa dhibto in xuquuqdooda loo sheego hada qaar dhibsanay maqla waxa la inay dhiiga ku cina laga yaabo immediately maxaa nimanka wadaad markasta laga hadla xuquuqda laga hadla xuquuqda laga hadlayo horta xuquuq anaga aan kugu qornay ma ahan oo ku saaray ilaaha ku saaray xuquuqdaada ina ogaatidna maslaxadaada ku jirto waxba ha dhibsana walaashay waxba ha dhibsana waxbana xanaagin عقدها اسكو ردين ديغا اسكو كعينين حقوق دادا انا اوغاتي اي واجبات كذا wax adiga ku anfacaya waaye ani maxaan leeyahay kaliya inta dhihi lahayd waxa la aniga maxaa ligu leeyahay marka ogaatid waajibaadka ku saaran markaas xuquuqdaada helaysa qof waajibkiisa ka soo bixin xaqiisa ma helo by the way wixii laga rabay hadaadan sameeyay xaqiisa ma helaysa hadii wadanka degan wadamada reer galbeedka qofka duusan canshuurtiisa bixinin xaqiisa ma helayo واجبي دولة صارت إنه بحية واحد هذا سو شقينين بيجيك مهليسيت هذا سو شقينين جاك لقمة سيناء هذا سكول أكلهن امتحانكم باسيسي حلو بهاي مرك حقوق ذا إنه قاعد له بهاي نينك مسؤولية ذا صار وحواي عرورتيسة يحاسكيسة مسؤولية ذا صار بيلكود إنه ميل دو جورجود إنه ميل دو gabdhaha Soomaalida labadaas arin waxay la tahay wax ma nansense la tahay waxay ku leeyihiin ani dawladda way beeshay dhibka jira taas waaye haduu ii furmo maxay iga halaabay aniga ceeraan qaadana guri free waa liisiina dhibka jira taas waaye marka ceeraan qaad guri free lagu siiyay ilmahaaga halkay ku dambeynayeen ninka mas'uuliyadda saaran waxa gurigaas inuu mas'uul ka noqdo wax kasto financial ku saabsan wax kasto cunitaan ku saabsan wax kasto ku saabsan meel la seexdo mar haday noqoto security haday noqoto caafimaadkooda oo gurigaas mas'uul ka yahay ilaaha saare gabadha maxaa mas'uuliyad gurigaas dhaxdiisa mas'uuliyad ka tahay banaanka ninka mas'uul guriga dhaxdiisa dumar gabadha mas'uul ka maxay mas'uul ka tahay gurigeeda ninkeeda gurigeeda in nadaafada gurigeeda mas'uul ka tahay cuntada gurigeeda mas'uul ka tahay ilmaha nadaafadooda iyo dharkooda gurigeeda mas'uul ka tahay wax walbo gudaha laga baahan yahay wasaaradda dakhliya mas'uul ka wixii banaanka laga baahan yahay wasaaradda kharijiya mas'uulka ka saasa loo kala qaybiyay laakiin hadii saan la isugu qaso oo la kala garan waayo buuq meeshaas uu ka bilaabana dhibka jira idin sheego shaqadii ninka iyo shaqadii naagta oo isku darsantay gabadha way ka lahday ninkan uu ka lahaa labadaba la soo shaqeeyay guriga markii la yimaadane gabadhana jikadii gashaa ninkana jikada u galaa wax kala baxsan ma jirto wax kala baxsan saana la isugu qasay adiga maalintaada anigana maalinteeda way adiga maalintaada dhiirad adiga shaqadaada anigana shaqadeeda ma tiraahay taas ku fiican adiga maalintaada aniga maalintaada adiga 50gaaga aniga 50gaaga inta dhihi lahayd ma tiraahay ilaahay wuxuu ku saari waajibku ilaahay ku saarina qabso waajibku ilaahay saarina qabso waajibkaaga qabso waajibkayga qabsana isku mid ma qaban karno gabadha uuray leedahay waa shaqeynaysaa shaqi u kala hoysaa
iyada uur lahoo dhibaato haysay shaqo u kala haysaa iyada dhan waa isbedeshay dabeecadeeda isbedeshay shakligeeda isbedelay korkeeda isbedelay wejigeeda isbedelay culays balaas waay ninkii 50giisu bixna 50geeda inay baxsatay rabtaa culays uusan ilaahay saarinay gabdhaha isa saareen taas waayo gurigooda u burburayaan gurigaaga mas'uul ka tahay gabarta walaashii gurigaaga mas'uul ka tahay gurigaaga ilaasho khayr Allah ku siiyo hadaa diidid talada oo tiraahdo kale maya dan waxaad ka heshid dad kale waxa ka siinin adiga arki doontid runtii waxa lagu sheegay tala waa wallahi taladan hadda sheegayo 100% sax inay tahay ma aha quraan ma aha xadiithna ma aha waxa loo baahan yahay walaalayaal nino waajibka ku saaro ilaahay ku saaray ugu sameey walaashi waajibku ilaahay ku saaray baro sameey waxaad arkaysan idinku walaaltinimo wada socota arkaysan hadii kala soo maahan kiisa ku qabsatid adina kaagu ku qabsado farxad kuma noolaanaysan wada noolaada ilmaha wada korsada laakiin maxaa faa'iido ah nolol aan farxad lahayn maxaa faa'iidadeeda malahan khayr Allah idin siiyo تردينا سوق قد بإذن إن شاء الله تعالى جزاكم الله خير بارك الله فيكم وإنه تلاسو صعدت إيوه سؤال كلام كجواب دون إلى تلاسو صعدت لأجانا وحكا عد سنة إن شاء الله تعالى كفائدي وحي ترى ومليني سنو صقر ولا لها كان لو سوق قد بخير الله جزاكم الله خير بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته